diintu waa waxa ugu muhiimsan ee u awoodsiin kara ruuxdeenna inay hesho deganaansho, farxad, kalsooni, awoodda ku adkaysiga, isxakamaynta, dhiirinaanta, u bareeridda iyo tala saarashada. qof kasta oo inaga mid ahi wuxuu baadigoob ugu jiraa inuu helo intaas oo dhan sababtoo ah waa guusha dhabta ah. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. السلام عليكم كسو دو جنالka hagaha nafta magacaygu waa Qaasim Maxamed Daacad waxaan ahay saaxiibkaaga guusha. haddii aad ku cusub tahay janalkeena maxaad sugaysaa waa tookadaadii ku soo biir oo taabo badhanka guduudan ee muuqaalkan hoostiisa ah kuna qoran tahay subscribe kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaaladeena. mahadsanid. marka aad guul raadinayso waxaad u baahan tahay hagitaan wax kugu haga kuna iftiimiya wadadaada guusha sababtoo ah inta aad ku guda jirto baadigoobka guushaada iyo kamera dhalinta hadafkaaga ayaad waxaad la kulmi doontaa caqabado aad u badan oo kugu qasbi doona inaad isdhiibto kana tanaasusho guushaada iyo hankaaga. si aysan taas u dhicin waxa aad u baahan tahay wax kuu awoodsiiya inaad xamisho una dulqaadato caqabadaha kaa hor imaanaya ee isku dayaya inay ku istaajiyaan. awoodda dhabta ah ee aad u baahan tahay inaad ku dhex jibaaxdo kana guulaysato caqabadaha kala duwan ee kaaga imaanaya naftaada iyo dadka kugu hareeraysan ayaa ah diintaada. sababtoo ah diintu waxay kugu hagaysaa inaad ahaato qof anshax ahaan u toosan. diintu waxay kugu hagaysaa inaad daryeesho naftaada iyo dadka kaleba. diintu waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad u noolaato gaaridda yoolkaaga adduunyo iyo midkaaga aakhiraba. diintu waxay ku siinaysaa iimaan aad ku dhaqaajin karto buuraha. diintu waxay dejinaysaa qalbigaaga, waxay awood u yeelaysaa ruuxdaada. sidaa darteed dadka guulaysta ayaa waxaa caado u ahayd inay subaxdoodu ku daahfuraan marka ay ka soo toosaan hurdada cibaado inta aysan u gudbin maalinta qaybteeda kale. halyeygii lagu magacaabi jiray Mahatma Gandhi ee u dhashay dalka Hindiya wuxuu ahaa qof u bareeray inuu hor istaago gumaystihii Ingiriiska ee xilliga gumaysanayay dhulkooda. isagoo aan wada waxub ah ayuu u bareeray qatartaasi, balse wuxuu ruuxdiisa ku dhaqaajin jiray kuna dadaali jiray una aaminsanaa awood sare inay jirto oo ah awoodda Alle inay u suurtagelin karto awooddaasi wax walba haddii uu aamino awooddaasi. taasna waxay u suurtagelisay Mahatma Gandhi inuu wiiqo kana guulaysto gumaystihii Ingiriiska una gaarsiiyo dalkiisa xorriyad maanta ay haystaan dadyooga ku nool dalka Hindiya. adigana sidoo kale aamin oo ku dabaq nolol maalmeedkaaga awoodsiinta ruuxdaada si aad u badasho ugu guulaysato una maamusho noloshaada oo dhan. ugu dambeyntii adigu waxaad u dhalatay inaad guulaysato kana adkaato caqabad walba ee noloshaada soo wajahda noocay doonto ha noqotee. kaliya aamin oo awoodsii ruuxdaada hana ka fogaani diintaada oo mar walba u taagnow inaad ku dhaqanto diintaada si ay ruuxdaada awood u hesho allana raalli uu kaaga noqdo. waxaan rajeynayaa inaad aad uga hesho muuqaalkan. maxaad sugaysaa waa tookadaadii dhiirigeli janalka oo muuqaalkan ku qabo like kadibna u sii gudbi asxaabtaada oo u sheergaree si ay iyaguna kula daawadaan. haddii aadan weli ku soo biirin janalka hagaha nafta maxaad sugaysaa taabo badhanka guduudan oo ay ku qoran tahay subscribe kadibna furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya uu soo gaaro muuqaal walba aynu soo dhigno. hana iloobin mar walba adigu waxaad u dhalatay una abuuran tahay inaad guulaysato. aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.